kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka waa janaalkeena udub Soomaali TV qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona Puntland oo liiday maqaamkeeda una gaftay midnimada Soomaaliya waxaa kale oo warkeena idinku soo gudbin doona Somaliland oo ka shaftay qodobada la qariyay ee ku jira heshiiskii Puntland Mareykanka oo duqeyntii 81 ka fuliyay Puntland iyo xogaha ka soo baxayo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo wado markan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah ciidanka maamulka Somaliland dagaalka Oodal iyo Somaliland halkee buu ku dambeeyaa jabhadda Oodal halkee qabsatay warkeena ayaan ku soo qaadan doonaa qodobadaasi qodobo kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal daawo doontaan haddii aad janaalkeena Udub Soomaali TV ku cusubtihiin subscribe noo saar janaalka like iyo share iyo comment waa dhankiina aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya tallaabadii Puntland ay ku liiday maqaamkeeda una gaftay midnimada wadanka Soomaaliya ayaa markan qoraal dheer laga soo saaray golaha cadaaladda iyo dimuqraadiyadda Puntland ayaa ka soo saaray war-saxaafadeed rasmi ah oo kaga hadlayaan heshiiskii axadii lagu kala saxiixday magaalada Nairobi kaasi oo dhexmaray maamulada Puntland iyo Somaliland qoraal ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid si toos ah oo khilaafsan mabaadi'da iyo sidoo kale himilooyinka lagu aasaasay maamulka Puntland isla markaana uu dhaawacayo midnimada dhulka iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed golaha waxa kale ay tilmaameen in heshiiskaasi mid si cad uga hor imaanayo himilada Puntland gaar ahaan qodobada dastuuriga ah maamulka ee qeexaya ilaalinta midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya war-saxaafadeedka ayaa si gaar ah loogu xusay in heshiiskaasi lagu sheegay Puntland ay soo dhaweyneyso Somaliland taasi oo sheegaysa inay tahay hadal aan waafaqsan mabaadi'da asaasiga ah ee lagu dhisay maamulka Puntland sidoo kale golaha waxay sheegeen in heshiiskaasi oo hoos u dhigayo maqaamka dowladnimada Puntland maadaama magaca rasmiga ah ee dowladda Puntland lagu bedelay Puntland oo kaliya tallaabadaasi sida lagu sheegay war-saxaafadeedkii waana mid dhaawacaya sumcadda iyo sidoo kale madaxbannaanida maamulka isla markaana aan marnaba la aqbali karin war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in heshiiska lagu sheegay inuu ku saabsan yahay iskaashiga dhinacyada amniga siyaasadda gaar ahaan la dagaalanka argagixisada balse uu yahay mid aanan sharci rasmi ah ku fadhin maadaama uusan helin ogolaansho ka yimid hay-adaha dastuuriga ah ee Puntland golaha ayaa ku adkaystay in arrimaha noocan oo kale ay u baahan yihiin wada tashi ballaaran oo si buuxda uga qayb qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada dhanka kale siyaasiyiinta caanka ah ee ka soo jeeda Puntland iyo xubno ka tirsan maamulka cusub ee waqooyi bari ayaa si adag uga falceliyay heshiiskii iyagoona ku tilmaamay gibi ahaanba gaf siyaasadeed iyo sharciyadeed waxayna ay sheegeen inaysan jirin xuduud rasmi ah ama xiriir dowladeed oo ka dhaxeeya labada dhinac ayna tahay arrin dhaawacaysa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed waxaana ay tilmaameen in tallaabadaasi looga baahan yahay in isbedel cusub ay la yimaadaan maamulka Puntland waxaana siyaasiyiinta uu ka mid yahay Xasan Sharax Abgaal dhammaantoodba ay sheegeen inaan marnaba loo dulqaadanaynin Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale Siciid Dani qaladka ay hadda ay ku jiraan dhanka kale Somaliland ayaa ka shiftay qodobada la qariyay ee ku jiray heshiiskii Puntland iyo Somaliland wasiirka difaaca Somaliland Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in Somaliland iyo Puntland ay gaareen heshiis aan caadi ahayn oo ay si wadajir ah uga soo horjeedaan dhismaha maamulka cusub ee waqooyi bari kaasi oo dhawaan looga dhawaaqay magaalada Laascaanood labada maamul ayaana arintaasi ku tilmaamay mid halis ku ah xasiloonidooda gobolka Maxamed Yuusuf oo la hadlay laanta afka Soomaaliga BBC-da ayaa xaqiijiyay in labada dhinac ay iskaashan doonaan sidii loo joojin lahaa hirgelinta maamulka cusub isla markaana loo xakameyn lahaa khatarta amni ee ka soo ifbaxaysa gobolada waqooyi waxayna si toos ah ugu eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay dhiirigelinayso abuuritaanka maamulka waqooyi bari isagoona ku tilmaamay in isku day lagu doonayo in lagu qalalaasay deegaanada muranka uu ka taagan yahay maamulka Somaliland ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay tallaabo kasta ay qaadayaan ay noqon doonto in ay isbedel cusub ay la imaan doonaan Maxamed Yuusuf ayaa intaasi ku daray in labada maamul ay xoojinayaan iskaashiga amniga si wadajir ah looga hortagayo dhaqdhaqaaqyada kooxaha argagixisada ee halisaha ka imaan kara xuduudaha ay wadaagaan
waxa uu ka digay in kooxaha xagjirka ah iyo sidoo kale xoogaga shisheeye ay ka faa'iideysan karaan xasilooni darrada ka taagan deegaanadaasi xadka ah ee u dhexeeya labada dhinac. Sida uu sheegay wasiirka Somaliland iyo Puntland waxa ay sidoo kale isku raaceen in la dejiyo xeelada magaalada Ceergabo iyo sidoo kale xarunta gobolka Sanaag iyo in la taageero dadka barakacayaasha ah ee kusoo laabanaya guryahooda. Qodobadaasi oo heshiis ah waxay noqonayaan kuwo hadalhayn badan dhalay iyadoona dadka ka soo jeeda Puntland ay la yaaban yihiin. Heshiiskan ayaa loo arkaa mid dhif ah maadaama ay aad u yar yihiin mararka qaar iskaashiga dhabta ah ee yeeshaan Somaliland iyo Puntland, labada maamul oo muddo dheer isku hayay muran xuduudeed iyo sidoo kale dagaalo goos-goos ah oo ka dhacay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Ku dhaqaaqistan dowladda federaalka Soomaaliya maamulka waqooyi bari ayaa sii horanaysa xiisada ka jirta waqooyiga. Maamulka cusub ayaana lagu daray gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Nidaamka federaalkana Soomaaliya waxa uu daba socdaa geedi socodka muddo sanad ah oo ay ka bilaabeen maamulka si ku meel gaarka ah ee SSC qaatumo. Dowladda federaalka Soomaaliya dadaal weli way wadaa, laakiin arrimahaas oo idil waxay u muuqanayaan in xaaladdu ay aad u adag tahay. dhanka kale daawadayaal, Mareykanka ayaa duqeydii 81 ka fuliyay Puntland iyo xogo dheeraad ah oo ka soo baxaya taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa shaaciyay in duqeyn cirka ah ay ka fuliyeen deegaanada maamulka Puntland, taasi oo qayb ka ah howlgallada joogtada ah ee Mareykanka uu ka wado Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay meel qiyaastii 60 kiiloomitir u jirta magaalada degmada ah ee Boosaaso, isla markaana ay ku bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan kooxda Daacish ee ku sugan halkaasi. Taliska Mareykanka ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha weerarka, balse waxa uu sheegay in duqeynta ay qayb ka tahay dadaalada lagu wiiqayo awoodda kooxda argagixisada ah ee ku sugan waqooyiga Soomaaliya. Mareykanka ayaa muddo dheer taageero militari siiyay ciidamada Puntland ee la dagaalamaya kooxda Daacish maadaama maamulkaasi uusan si toos ah u helin taageero ka timid dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho fadhigeedu uu yahay. Weerarkan ayaa noqonaya kii 81 ee Mareykanka uu ka fuliyay gudaha Soomaaliya sanadkan, iyadoo taasi ay u muuqanayso in lagu jibinayo kooxda argagixisada Daacish. Intuu Trump joogay aqalka cad, Mareykanka waxa uu sameeyay duqeymo badan oo ka dhan ah kooxda argagixisada ah, halka madaxweyne Joe Biden uu 4 sano ee la soo dhaafay 51 duqeyn oo kaliya uu ka fuliyay Soomaaliya. Howlgallada Mareykanka ayaa sidoo kale ka socda gobolada bartamaha iyo koonfurta dalka, halkaasi oo ay u taageeraan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay burburiyaan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Dhowaan Africom ayaa sheegtay mas'uuliyadda duqeyn ka dhacday gobolka Sanaag, taasi oo lagu dilay in nin ay ku tilmaameen ganacsade hubka u kala gudbin jiray maleeshiyada Al-Shabaab. Hase yeeshee dadka deegaanka iyo ehelada ninkan la dilay ayaa si adag u diiday sheegashada Mareykanka, iyagoo ku adkaystay in uu ahaa oday nabadoon caan ah oo aanan wax xiriir ah la lahayn kooxda argagixisada ah. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen Udub Somali TV saaxiibayaal waa nagaytaa daawaday. haddii aad janaalkeena Udub Somali TV aad ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, like iyo share iyo comment waa dhankiina. waa mahadsantihiin, nabadgelyo.